السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك دمان مسلمين والسلامتين. maanta cashikeena wuxuu ku saabsan yahay sida loo bedelo timeka oo computerka sida loo bedelo anagoo isticmaaleyno MS-DOS anagoo isticmaaleyno ama sida u taqaanaaba shaashada madow anagoo isticmaaleyno. fadlan ku soo dhawow, waxaana ka codsanayaa inaad soo daawato cashadii kan ka hooyay inaad soo daawato sida aad la socoto ama la jaan qaado cashada oo dhan. marka waad ku maasantahay insha Allah. haddaad ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gayso, haddaad naga mid tahayna inaad like aad dhaado sidii u gaayo dad kaleete ay ka faa'iideystaan cashada ka socdo. waana casho basic ah, insha Allah ka faa'iideysta. waxaan gudaha u galayaa cashikeena oo maanta magacashikeena wuxuu ku saabsan yahay waa sida loo bedelo timeka oo computerka adigoo isticmaalayo MS-DOS. maanta cashikeena waxa u qaadan doonaa wuxuu noqon doonaa sida timeka computerka loo bedelo. waxaad tagi doonaa number 1 start buttonka ayaa soo kicina ama start menu, all program ama all apps accessories component ayaa soo kicin doonaa. kabacdi waxaan ku qoran doonaa shaashada madow gudihiisa ayaan ku qoran doonaa time ayaan qoranaa. kabacdi waxaan noo soo bandhigayaa timeka computerka saan ayaan noo soo bandhigayaa. kabacdi waxaan ku suubi doonaa changing waan bedeli doonaa. kabacdi waxaan leenahay enter ama okay sida u taqaanaba ayaan dhihi doonaa. insha Allah aan soo kacsano programka MS-DOS-ka waxaan leenahay window key plus r kabacdi saas soo kici doonaa. kuwa kan hadda ii kacsan yahay waa ka. kabacdi waxaan leeyahay waxaan qorayaa timeka qoyo wuxuu ii soo bandhigayaa ama displayin uu soo bandhigayaa uu soo bandhigayaa timeka computerka hadda saaran ayuu soo bandhigayaa. waa kana sida halkan ugu jeedaan waa 8 saac iyo rubi ayuu sheegayaa. waa ka sida ugu jeedaan 8 saac, halkani waa 14 ka xulul jeedaa 8 saac waaye. halkan waa kana waa ka insha Allah waxaan gudaha u galeynayaa practicalka macashikeena sidaan u bedel leeynay timeka sidaan u bedel leeynay. marka sida aan u bedelno timeka qaldan waxaan ka dhigayaa waxaan ka dhigi doonaa sagaal sac ayaan dhigi doonaa. 9 sac loo dhibcood 16 daqiiqo loo dhibcood 35 second. okay waa kana hadda timeka uu isbedelay sidaad halkaan ugu jeedaan waa ka uu isbedelay timeka. waa kana marka halkaan ayaa kusoo bandhigayaa dad waxaan qoynaa time ayaan qoynaa sidaan ogaano timekana isbedelay intee kaleete time. okay dheh waa kana timekii wuu isbedelay waa kana 9 sac iyo 16. marka timeka sidaas ayaa bedelaya adigoo isticmaalayo MS-DOS-ka. marka insha Allah waxaan u maleynayaa inaad fahanteen. hadda timekii aan qaladnay aan sixi doonaa insha Allah. hadda taariikha waqtiga aan fiirin doonaa. hadda 8 saac iyo 20 ila waaye timeka aan sixi doonaa. halkana waxaan ka dhigi doonaa 8 saac 2 dhibcood iyo 23 2 dhibcood iyo 15 ama 15 second. okay leenahay waa kana timeka uu isbedelay. marka sidaan ku ogaanay timeka inuu isbedelay waxaan qoray doonaa time. okay dheh waa kana timeka uu isbedelay. haddayn wuxuu ahaa 9 sac hadda wuxuu ahaa 8 sac iyo 23. waxaan u maleynayaa inaad fahanteen waadna ku mahadsantiin sida wacan aad ila socoteen. insha Allah wixii su'aal aad qabtaan commentigana web waxaana isku dayaynaa sida ugu dhaqsiya badan aan kaga soo jawaabno. waadna ku mahadsantiin daawashada wacan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. goodbye. فضلا